السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو waa Yuusuf. waxaan jiraa 25 sano. qof kasta oo anaga naga mid ah waxa uu leeyahay jecelkiisii ugu horeeyay ama jecelkaas wuu sii socdaa ama wuu dhamaadaa sida aniga igu dhacday oo kale. aan idin sheegay sheekadeeda oo soo bilaabatay marka aan jiray 18 sano. waxaan rabooday inaan u safro magaalo kale si aan shaqo uga helo. adeerkayga ayaa igeeyay meel ka mid ah meelaha lagu ganacsado. waxaan meesha isku baranay Mudan Axmed oo ah mulkiilaha dukaanka. wuxuu ahaa qof aad u wanaagsan, wuxuuna iga dhigan jiray wiilkiisa oo kale. maalin maalmaha ka mid ah ayuu iigu dhahay, wiilkayga Axmed, xaaskayga iyo caruurteeda ayaa soo socdaan. waxaan kaa codsanayaa alaabtan inaad qolalka gurigayga geyso. qof adiga kaa wanaagsan ma jiro oo hawshan ii qabanayo. waxaan ku dhahay hay mudane dhib ma lahan, isla hadda ayaan baxayaa. aadaa u mahadsantahay iyuu igu dhahay. gurigiisa ayaan aaday, albaabka ayaan furay, waxaana bilaabay qolalka inaan hagaajiyo iyo inaan alaabihii oo ii soo dhiibay aan dhigo booskooda. si lama filaan ah ayaa gabar isku da'nahay qolka aan hagaajinayo u soo gashay. waxayna igu dhahday, yaa tahay adiga, maxaadna halkan ka qabanaysaa? waxaan ku dhahay, Yuusuf ayaan ahay, Mudan Axmed ayaa halkan ii soo diray. yaa tahay adiga? haa, soo dhowow, Mudan Axmed gabadhiisa ayaan ahay, waxaana lay dhahaa Nuura. qolkan waa qolkayga. marka aan jabaqdaada maqlay ayaan soo cararay. waxaan ku dhahay, waan kaa raaligelinayaa, sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan qolkan urasaynayaa, waana baxayaa. aniga aabahayga waa ku kalsoonahay maadaama uu kaa soo doortay dadkaas oo idil. waxaa tahay qof aad u wanaagsan, asna wuu ku jecel yahay. haa, waa aabahayga oo kale, anna waan jeclahay. waxaan umalaynaa adiga magaaladan kuma dhalan, waayo lahjadaada way ka duwan tahay mideena. midda kale waa markii iigu horraysa aan inta kugu arko. haa, waa runtaada, magaalo kale ayaan ka imaaday. adeerkayga ayaa meeshaan i keenay si aan u shaqaysto. marka aan shaqada bilaawaayena idinka waa maqneedeen, sidaas ayaad iigu arki weyday. waan ku farxay kulankaaga, anna sidoo kale waan ku farxay kulankaaga. xoogaa aan ku caawiyo, intaas noloshaada iga sheekaya haddaad rabto. maya iska daa, ha iskalefin ayaan ku dhahay. middan waa hawshayda, wax akhris ayaa ku sugaayo, waxaaga akhriso. maya ayay iigu dhahday, mar hore ayaan dhammeeyey ee noloshaada iiga sheekay. nuura waxay ku adkaysatay in ay isaacido. sidaas ayaan isku xalwaraysanay, iskuna baranay ilaa ay walaalaheeda ka yimaadeen. waan soo baxay, waxaana aaday dukaanka si aan u saacido Mudan Axmed. maalmo iyo bilooyin ayaa ka soo wareegay. markasta Nuura waan is arki jirnay, waana sheekaysan jirnay. Mudan Axmed ayaa xil ii saaray Nuura inaan iskuulka geeyo kana soo wada maalin walba. maalin kalena Mudan Axmed wuxuu igu dhahay, Nuura suuqa ayay rabtaa inay wax ka soo iibsato, anna kaligeeda waan u baqayaa, ma raacaysaa? haa, waan raacayaa mudane ayaan ku dhahay. ani iyo Nuura suuqa ayaan isku raacnay. marka aan meesha gaarnay waan awoodi waayey inaan dareenkayga sii qariyo. dareenkayga ayaan u sheegay, ayadana sidaas oo kale ayay iigu sheegatay. si aan u faraxsanayn ayaan aniga ku dhahay, si ay muruga ku jirto, laakiin nolosheena way kala duwan tahay. adiga maamulaha aan u shaqeeya gabadhiisa ayaa tahay, iskuma qalanno. waxay igu dhahday, Yuusuf, hadda ka hor adiga soo iguma dhihin Mudan Axmed waa aabahayga oo kale. midda kale jaceylka uma kala soocna taajirnimo iyo faqiirnimo. run ahaantii dareenka aad ii hayso mid ka daran ayaan kuu hayaa. mar hore inaan kuu sheega ayaan rabay, laakiin waxaan ka baqayay inaad i diido. midda kale in xiriirkeena la yeelayo uma malaynayo. adiga uma qalantid qof aniga oo kale. aniga qofka munaasibka iigu ah waa adiga. dadka fikirkooda ma daneeyo. waxaan rajaynaya inaan ku helo, weliba aan isla duqowno. laakiin muhiimadda waxa ay tahay in uu aabbahaaga yeelo. ii ogolow inaan la hadlo, go'aankuu soo gaarana waan ku qanacsanahay. haye laakiin marka hore anaa la hadlaayo. Nuura ayaa Mudane Axmed wax walba u sheegtay. Mudan Axmed ayaa kulankayga dalbaday. wuxuu iigu dhahay, Yuusuf, Nuura ayaa wax walba ii sheegtay. gabadheeda qaali ayay iigu tahay, maadaama ay adiga ku dooratay kuna jeclaatay. waan ku waafaqay, adna wiilkayga oo kale ayaa tahay. laakiin waxaan kaa codsanaa Nuura inta ay waxbarashadeeda ka dhammaysanayso inaad sugto. waxaan ku dhahay, mudane waxba ha ka cabsanin, gabadhaada anigaa ilaalinayo. maadaama aan jeclahay waxaa waajib igu ah inaan sugo. Mudane Axmed si farxad ay ku jirto ayuu iigu dhahay, haye. waxaan kaloo ka dalbaday fasax 2 isbuuc ah si aan u aado magaalada kale una soo laabto. haye ayuu iigu dhahay. Nuura ayaan soo wootiyey, waana soo baxay. isbuuc kadibna waan soo laabtay. Mudane Axmed ayaa iigu dhahay, guriga inaad ii ilaalisa ayaan rabaa, aniga iyo qoyskaygaba safar ayaan aadaynaa. haye ayaan ku dhahay. inta aysan bixin ka hor ayaa Nuura iigu dhahday inaan safarkan aado ma rabo. waxaan ku dhahay, qoyskaaga way kaa xumaanayaan, markaad soo laabato ayaan waqti fiican isla qaadanaynaa. haye ayay iigu dhahday, naftaada ilaali, adna sidoo kale naftaada ilaali ayaan ku dhahay. Nuura iyo qoyskeeda waa ay baxeen, laakiin wax sidaas u badan kama aysan soo wareeganin. waxaa lay soo sheegay geerida Mudane Axmed iyo gaclisadeeda. shil baabuur ayay
ku geeriyoodeen. Aad ayaan u naxay, waan iscelin waayey, waan ooyey, nolosheeda oo dhan way isbedeshay. Waan aamini waayey waxa dhacay. sanadooyin ayaan sidaas ahaa, waan ilaawi waayey Nuura, mana laga yaabo inaan ilaawo. waxa ay ahayd jecelkaygii ugu horeeyey, laakiin nasiib wanaag alle ayaa mar kale jecel kale isiiyey. hadda waan guursaday, gabadha lay dhalayna Nuura ayaan u bixiyey, si aan mar walba Nuura ugu soo xasuusto. markastoo aan dad jeclaano, marnaba ilaaweyno jecelkeennii ugu horeeyey. fadlan haddii aad channelka cusub tahay, waxaan kaa codsanaynaa like iyo share iyo subscribe inaan noo dhahdo.